Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadeen kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda ingiriisiga. Casharkan waa conversation 13 ama wada sheekaysigii 13aad ee barashada luqadda ingiriisiga. Sida caadada noo ahaydba waxaan isticmaalaynay a iyo b marka aan ka hadlayno wada hadallada luqadda ingiriisiga. Marka casharkan waxaa hadalka bilaabay a waxa uu yiri How was the airplane ride? How was sida ayuu ahaa the airplane ride? Ricitaankii ama socdaalkii diyaaradda sida ayuu ahaa ama safarkii ayaa la dhihi karaa. Ereyga ride waa socdaal, safar ama raacis hadba waxay ku xiran tahay jumladda ay ku jirto. Sidoo kale waxaa loo isticmaalayaa markii la raacayo farasta, baaskiilka iyo mootada iyo wixii la mid ah. B waxa uu yiri it was a 12-hour flight. It was waxay ahayd a 12-hour flight waxa uu ahaa socdaal qaatay 12 saac. It was so boring aad ayuu magaranaysaa u ahaa caajis ama waxa uu ahaa mid caajis badan. I tried waxaan isku dayay to sleep inaan seexdo but laakiin it was too uncomfortable on the plane. Waxa uu yiri marka it was waxa waa too oo mid aad ah marka uncomfortable waxaa la yiraahdaa aan wanaagsanayn, aan raaxo ahayn, yacni waa feeling ay ku dhahan tahay ama dareen ay ku dhahan tahay yani aan wanaagsanayn. Uncomfortable on the plane waxaa dhahnay waa diyaaradda marka. Wuxuu yiri marka safarka wuxuu ahaa mid aan raaxo ahayn ama aan wanaagsanayn ayuu ahaa. Ayaa weydiiyey how about ka waran the movies filimanta ama filimada they play on the international flights ay ciyaaraan ama ay ku ciyaaraan safarada caalamiga ah. I saw both movies waxaan arkay ama waan arkay labada filim they played iyaga ay ciyaareen. I was just unlucky waxaan ahaa qof nasiib daran marka. Yani waxa uu la jeedaa aragtida uu arkay labada filim waxay ahaayeen kuwo aan wanaagsanayn ama boring ah. Sidaa darteed ayuu ula jeedaa marka I was just unlucky waxaan ahaa qof nasiib daran ayaan ahaa marka. Wuxuu yiri did you take a book with you? Ma qaadatay ama ma wadatay book ma qaadatay? I accidentally packed it with my luggage that I jacket in. Waxaan accidentally waxa weeye I accidentally waxaan si lama filaan ah ugu baakad gareeyay ama aan ugu xirxiray boorsadeyda ayaa la dhihi karaa. Packet waxa weeye ereyga packet waa baakad gareyn ama markii aad waxa aad xirxirto ayaa la yiraahdaa. With my luggage waxa la yiraahdaa waa sida package oo kale ama boorsada safarka ayaa la yiraahdaa marka. That I jacket in taasoo aan marka aan mariyay jackinka ayaan mariyay marka sidaa darteed waxa weeye waxaa la geliyay meeshii boorsada la gelin lahaa ama buugga boorsadii meelihii boorsooyinka ayaa la geliyay marka. Ereyga jacket waxa weeye waa markii airportka boorsooyinka la marinayo jackinka marka. Waxaa dhahanay waa laba qof oo ka sheekaysanaysa wuxuu ku saabsan conversationka safar diyaaradeed ayuu ku saabsan marka. Erayaasha ugu muhiimsan ama keywordska ama erayaasha ugu muhiimsan waa airplane oo airplane waxaa dhahnay waa diyaarad. Ereyga ride ayaa ku xigay. Ereyga ride waxa uu ahaa safar ama raacis ama fuulid hadba ayaa loo dhihi karaa waxayna ku xiran tahay ayaan dhahnay jumladda meesha ay ku jirto ayay ku xiran tahay markii la fasirayo. Uncomfortable waxaa dhahnay waa aan raaxo ahayn yani waa dareen aan wanaagsanayn. Ereyga comfortable ayaa ah raaxo ama wax lagu raaxaysto. Movie ama movies waxaa dhahnay waa filmaan. Unlucky waa nasiib daro ama qof aan nasiib lahayn ayaa unlucky la yiraahdaa. Accidentally waan si lama filaan ah waxa aad ula kulanto ama si aadan filaynin wixii aad la kulantid ayaa loo isticmaalaa marka. Luggage waxaa dhahnay waa
boorsada ama boorsada gaar ahaan safarka boorsooyinka waxay kala leeyihiin magacyo kala duwan laakiin luggage-ka hadda waxaa dhahnay waa sida package oo kale ama boorsada safarada iyo loo qaato ayaa loo isticmaalaa marka halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dabcan casharkii ku saabsanaa labada qof ee wada hadlaysa ee barashada luqadda ingiriisiga gaar ahaan casharadii taxanaha ahaa qeybtii 13aad